xaruntani idin muuqata daawadayaal waxay ka mid tahay MCH lagu talagalay hooyada iyo dhalaanka oo iskaa wax u qabso ay ku dhisteen dadweynaha ku dhaqan degmadaasi Ceelaf Weyn. Odayaal waxgarad ayaa booqday MCH kaasi oo meel fiican maraya. odayaasha iyo waxgaradka salaadiin iyo waliba cuqaal jiif caaqilo ayaa ugu baaqay in laga soo qayb qaato dhismaha MCH kani hooyada iyo dhalaanka ee dhismihiisu ka socdo degmadaasi Ceelaf Weyn. waxayna ugu baaqeen dawladda, hay'adaha samafalayaal iyo cid kasta oo ka qayb qaadanaysa inay MCH kani dhismihiisa ka qayb qaataan. wixii ay ugu soo hagaajin doonaan ama ay kala soo xiriiri doonaan telefoonka idinka muuqda halkaasi. maxamed sahal cali oo ah gudoomiyaha guddidan MCH kani iskaa wax u qabso lagu dhisayo ayaa halkaasi ka warbixiyay maraaxilka kala duwan uu soo maray MCH kaasi. MCH kii laga dhisay degmada Ceelaf Weyn. MCH kan oo la dhagax dhigay bishii labaad ee sanadkan waa aragtaan halka uu marayo. marxalad kala duwan buu soo maray. wuxuu ka kooban yahay dhismaha inta laba qaybood kala ah, laba ward iyo 4 xafiis iyo store intaas ka kooban yahay geer weyn. waxaan MCH kan bilaabay dad mutadawiciin ah oo isugu jira culimo iyo dhalinyaro ka soo jeeda degmada Ceelaf Weyn, kuwaas oo kadib markay arkeen baahida loo qabo MCH arintaas ku dhiiriday. waxaan ku codsanaynaa dadka ganacsatada iyo qurbo joogta iyo waliba dadka xukuumadda ku jira ee deegaanadan ka soo jeeda in ay ka qayb qaataan dhismahan oo baahi weyn loo qabo. waliba waqti xaadirkan ay jiraan xanuunada faafa oo caalamka si wanaagsan ugu baahaya. marka waxaan codsanaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba in gacan weyn laga soo geysto. halkaas uu taagan yahay waa idin muuqataa. waxaan rabaa inaan u mahad celiyo cid kasta oo dhismahaas ka soo qayb qaadatay, hadday tahay dadweynaha ku dhaqan degmada Ceelaf Weyn iyo hadday tahay dhalinyarada qurbo joogta ah ee arintaasi sida xoog gala uga soo qayb qaatay. waxaan rabaa inaan halkan iyagana baaq uga diro dadweynaha ganacsatada iyo qurbo joogta iyo dadka Ilaahay wax siiyay in ay dhismahaasi soo dhameystiraan oo baahi weyn loo qabo. geestooda waxayna halkaasi ka hadlay salaadiin, jiif caaqilo, cuqaal iyo waxgarad, kuwaas oo dhammaantoodba ku baaqay in laga soo qayb qaato dhismaha MCH kani oo in muddo ah ka soconayay degmada Ceelaf Weyn ee gobolkaasi Sanaag. dhismaha MCH kan cusub oo baahi weyn u qabaan dadka ku dhaqan degmadaasi Ceelaf Weyn ayaa wax weyn ka tari doona baahiyaadka caafimaad ee ka jira Ceelaf Weyn. magaalo weyn noqotay MCH yaro horena uu ka dhisnaa oo wax yar uu noqday oo dadkii qaadi waayay, sidaa daraadeed baahidii markii uu dabooli waayay kii hore kan ayaa la dhagax dhigay. waxaanu ka codsanaynaa ama dibadda joogan ama dalka joogan ama ganacsatada ha ahaadeen inay dhameystiraan dadkii waxay soo maadeen dhulkooda wax ka dhiga. waxaan leenahay dee lagu soo dhiirado MCH ka ajar waa laga helayaa, dadka lagu dabiibaya xanuunsanaya qofkii wax gashada ajarna waa ka helayaa akhriya adduunkaba. soo muslina oo baaq ugu dirayna inay soo dhameystiraan intaa ka dhiman ayaanu leenahay. waan ugu ducaynaynaa ajar iyo haddii bidinkeedii leeyahay xasanaad badan bay ka helayaan. waxba hadalkan ugu badin maayo. waxaan leeyahay waa la soo dhameystiro intaa ka hadhay. qori xilkii buu marayaa, waska kala badh buu joogaa. waxaan halkan aad iyo aad ugu ducaynaynaa oo in badan aanu in Ilaahay ka abaal mariyo aanu ka xusaynaa dadkii hore uga soo qayb qaatay muruq iyo maal iyo maskaxba ee halkan soo gaarsiiyay. aad iyo aad joogay maanta waa jooga wax qabad baa ka muuqda. inta uu balciisu leeyahay waa aragtaan, inta dhisana waa aragtaan. waxaan leeyahay qolqol joog iyo qurbo joogba wixii wax haysta ee deegaanka ah waxaanu si naxariis looga codsanaynaa inay ka soo qayb galaan. dhameystirkiisii baa hadhay, maanta waa dhameystirkii baa hadhay. hawsha inteedii badan waa taalla. waxaanu taaganahay MCH taa la sheegay oo laga bilaabay degmada Ceelaf Weyn. iminka muddo laga joogo dhowr bilood. waxa laga yaabaa in dad badan oo maanta halkan naga dhageysan doonaan ay hore warkeen dhagax dhigiisii iyo maalintii meesha banaan ahaa ee iskaa wuxuu qabso lagaga shaqeynayay. maantana waa ka maraya meel jiingada la saaro maraya. waa mashruuc aad iyo aad u qiimo badan. waa mashruuc loogu talagalay dumarka iyo caruurta oo dhibaato badan ka haysato
oo dhaqaatiirtu ka fog yihiin oo aan daryeel caafimaad haysan oo isku umulaaroora oo carruurtu ku leeato baa waxaa la isla gartay dadka halkan jooga dhallinyarada waxgaradka culimada in loo baahan yahay si dhiiri ah oo aad iyo aad karti u leh ayay ugu dhiiradeen inay dhagax dhigaan baaqna ay u diraan dadka khayraadka jecel iyo dadka xilkaska ah waxaan leeyahay dadkii hore wuxuu ga geystay meel kastaba ha joogeene ilaahay waxaan uga baryayaa inuu maalkooda iyo carruurtooda iyo dadkooda iyo naftoodaba ilaahay waxaan uga baryay inuu ku badbaadiyo dadka ilaahay wax siiyey dadka xilkaska ah dadka waxgaradka ah qayladhaan waxaan ugu diraynaa inay dhammaystiraan oo la dhammaystiraan maanta axmed maxamed cilmi on cable tv elefon